waxaan dhammaan u mahad celinayaa dadkii soo abaabulay arrintan iyo dadka la baxay waxbarashada ardaydan masaakiinta loogu deeqay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa dhammaan walaalaha la baxay oo ka damqaday dhibaatada ka jirta Soomaaliya maanta oo ah mid dhaqaale mid nabadgeliyo mid waxbarasho la'aan mid jahli ah ardayda Soomaaliyeed oo isaga jirta dhaqaalahooda ay sakari karin inay iska bixiyaan waxbarashada dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe waxbarashada asaasiga laga soo bilaabo ilaa midda dhexe lagu tago ilaa midda sare ilaa heer jaamacadeed oo boqolkiiba maanta ay iska bixi karaan Soomaalida Muqdisho ama Soomaaliya ku nool ee colaaduhu ay haystaan tirada iska bixin kartaa ma gaari karto boqolkiiba 5 qoyska familka ee ka kooban 10 caruura ama 6 caruura ama 5 caruura ee dugsigooda iyo iskoolkooda la rabo in la bixiyo oo xaaladaas colaadeed ee dhibka badan ay haysato waad garan kartaan waana dareemi kartaan dadkiina qurba jooga ah in aan boqolkiiba 10 caruur ka kooban aan laga bixi karin waxbarashada midda dugsiga iyo midda iskoolka mid dugsi sare badaa mid jaamacadeedna daa waxbarashada asaasiga haddii ardaygu uu waayo ama laga waayo qoyska in ay waxbarashadii asaasiga ah ilmihii ka bixi waayaan waxay la mid noqonayaan kuwa miyiga jooga ama kuwa jooga iska maaragtay oo darbijiifka oo booliistayaasha iyo garaabiistayaasha loo yaqaano waxba kama bedelna mar haddii waxbarasho asaasiya loo waayo waxay ku kala bedelnaan karaan oo kaliya in waxbarasho la helo waxbarashadaas yaa awooda marka qoysku ma awoodaa inuu waxbarashada asaasiga ka bixiyo ilmihiisa inuu midda dhexe geeyo inuu mid sare geeyo ilaa heer jaamacadeed inuu gaarsiiyo su'aashu waa maya walba waad maqashaan waanad aragtaan dhibaatada ka taagan waad arkaysaan meesha hadda xafladda lagu qabanayo dadkan waa dad qaxootiye oo ka soo qaxay magaalada caasimadda ee Muqdisho meeshaas aad arkaysaan ee ceelasha biyaha ee hadda xafladdan lagu qabtay ayaa la isugu yimid dadkii noloshii aad ay ugu adagtaa waxbarashaduna aad ay ugu adagtaa walaalaheenna gartay inay waxbarashada asaasiga ka bixiyaan ardaydaas masaakiinta ah ee aan iska bixi karin ee aan awoodin arrin nabadgeliyo arrin dhaqaale duruuf jirta awgeed waan u mahad celinaynaa boqolkiiba boqol ilaahay ha ka abaal siiyo ilaahay maalin aan maanta ahayn ayay helayaan